salaamo saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa janaalka dabagalka wararka waa 22 bisha sagaalaad sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamid ah madaxweyne farmaajo oo sheegay in Soomaaliya ay ka dhacayso doorasho xor iyo xalaal ah khilaafka farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo saameyn xoog leh ku yeeshay dhaqaalaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamana waxa uu su'aal ka keenay sababta maxkamadda ciidamada ay u baari laadahay kiiska Ikraan Tahliil ganacsato Soomaaliya oo Turkiga lagu xiray lagana soo musaafurinayo dalkaasi faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax ka dhacay degmada Marka عبد حاشي مهدي قولدنا دلعين حوغان ay kala kulmeen liiska musharaxiinta aqalka sare oo shaaciyeen qaybta dambe warkeenana waxaad ku daawan doontaan warbixin ku saabsan xaaska madaxweynaha Turkiga oo sheegtay in maalintii Soomaaliya ay timid ay u ooysay si aysan wiligeedu ilmeyna inta si saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janaalka dabagalka wararka adeed ku cusubta janaalkan ku soo biro subscribe sar muuqaalka like sar share gare oo la wadaag saaxiibada aad ku maasan tahay inaad ka meetay saaxiibada dhow ee janaalkan haatan aan idinku wareejiyo waryaheena oo inoo soo gudbinaya wararkaasi oo faahfaahsan aad baad u maasantahay halka waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal haatan markaanu sii ambaqaadno qodobada warka janaalkana madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka dhacayso doorasho xor iyo xalaal ah kulankii sanadlaha ee golaha loo dhan yahay ayaa qabsoomay xilli madaxda caalamku ay ka hadlayeen waxyaabaha siyaasiga ah ee ka socda gudaha dalkooda iyo arrimaha caalamiga ee sida weyn u saameeya dunida dal ahaan halka ay ka taagan yihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in meel gabagaba uu marayo hanaanka in dalkan ay ka dhacdo doorashooyin xor iyo xalaal ah oo loo dhan yahay taasi oo sida uu sheegay ay ka qayb galayaan tirada ugu badan ee ka qayb galayaasha doorashada Soomaaliya tan iyo dowladihii sukeeyay madaxweyne Farmaajo oo khudbad ka jeedinaya golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa sheegay in doorashooyinkaasi ay udub dhaxaad u yihiin ilaalinta xuquuqda iyo rabitaanka muwaadiniinta Soomaaliya sidoo waxa uu ka hadlay xakameynta iyo kasoo kabashada saameynta dhaqaale uu reebay cudurka COVID-19 iyo sidii dhammaan shacabka Soomaaliyeed loo wada gaarsiin lahaa talaalka dardargelinta iyo dubahabeenta qaramada midoobe ilaalinta deegaanka iyo isbedelada cimilada adduunka madaxweyne Farmaajo ayaana si gaar ah qodobada uga hadlay waxaa kamid ahaa hanaanka doorashooyinka dalka iyo halka uu marayo isagoo sheegay in meel gabagaba ay wax marayaan waxaa hadda meel gabagaba noo maraya hanaanka qabashada doorashooyin xor xalaal ah oo loo dhan yahay taas oo ay ka qayb galayaan tiradii ugu badneed ee ka qayb galayaasha doorashada Soomaaliya tan iyo dagaalkii sukeeye hadalka madaxweynaha ayaana ku soo aadayay xilli muudooyinkii ugu dambeeyay uu khilaaf u dhaxeeyay isaga iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyadoo dad badan inay u arkaan in khilaafkan waqti kale dib u sii dhigi karo hanaanka doorashooyinka dalka dhanka kale waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay socday doorashooyinka aqalka sare xilli maamulada qaar aysan weli soo dhammaystirin xubnaha ku matali doona aqalka sare halka xildhibaanadii matali lahaa gobolada waqooyi aan weli la dooran Soomaaliya dhowr jeer oo hore ayay doorashadu dib uga dhacday xilligii ay ku mudeysneed dhinaca kale madaxweyne Farmaajo ayaana ka hadlay safmarka cudurka COVID-19 iyo sida ay dal ahaan ula tacaaleen waxaan ku faraxsanahay in aan idinla wadaago in dowladda federaalka Soomaaliya ay si degdeg ah uga jawaabtay cudurka safmarka ee uu soo tallaabay dalkeena qorshayaashu waa kuwa mudnaanta koowaad siinaya badqabka caafimaadka muwaadiniinta shalay ayay ahayd kolkii Soomaaliya mar kale soo saareen shuruuc looga hortagayo cudurka xilli ay wasaaradda caafimaadku sheegtay in mowjadii saddexaad ee cudurkan uu dalka galay qodbada madaxweyne Farmaajo ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaana ahayd mid la sii duubay oo iyada oo muuqaala ka bixisay kulanka golaha waxay ahayd maalinkii koowaad ee meertadii 76 ee kulanka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay geesta kalena khilaafka Farmaajo ee Roble ayaa saameyn xoogan waxa uu ku yeeshay dhaqaalaha Soomaaliya iyadoo ay haatan ka sii dareyso xiisada siyaasadeed ee ka taagan villa Soomaaliya ayaa haddana
khilaafka u dhexeeya madaxweynaha muddaxileedkiisu uu dhammaaday iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta wuxuu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka. ganacsatada ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa sanadii ugu dambeeyey sameeyey maalgashiga xoogan ayaa haatan walaac ka muujinaya xaaladaha soo kordhaya isqaqabsiga siyaasadeed ee u dhexeeya labada mas-uul ee ugu sareeya dowladda. sidoo kale ganacsatadan ayaa waxa ay sheegeen in uu khilaafkan horseedi karo burbur dhaqaale oo soo wajaha maadaama Soomaaliya ay haatan ku jirto xaalad hubanti la'aan. Cabdi Fataax Qaydanle oo kamid ah ganacsatada Muqdisho isla markaasna maamula mid kamid ah carwooyinka waaweyn ee ku yaala caasimada ayaa sheegay in uu hoos u dhacay dhaqaalahooda iyo sidoo kale wax iibsigii badnaa sabab la xiriira khilaafka dalka. markii uu isqaqabsiga bilowday hoos ayuu u dhacay dhaqaalihii iyo wax iibsigii badnaa wuu yaraaday. maxaa yeelay dad badan cabsi ka qabo lacagahoodii akoonada ku hayay ama la baxayo ayuu yiri Cabdi Fataax Qaydanle oo u waramayay warbaahinta. waxaa kaloo intaasi uu ku sii daray annaga waxaan ka cabsi qabnaa haddii uu isqaqabsiga bato oo colaadihii iyo dagaaladii soo laabtaan inuu kala carar imaado oo shaqo abuurkii iyo maalgelintii aan sameynay ay halbacaad lagu liso noqoto. dhinaca kale waxaa aada u yaraaday alaabihii kala duwanaa ee laga keeni jira dalka dibadiisa sida qalabka elektroniga waxaana ganacsatadu ay ka walaacsayiin xiisada taagan. walaac bay ugu heesaa in lacaga fara badan diro hadda alaab keeno iyadoo iska qabsigan jiro markastana wax way dhici karaan ayuu yiri ganacsado kale oo jooga Muqdisho. Soomaaliya ayaa haatan ku jirta xaalad hubanti la'aana waxaana wax waliba ay isbedeleen markii ay iskhilaafeen Farmaajo iyo Roble oo isku qabtay kiiska Igraan Tahliil. mid ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeedna waxa uu su'aal ka keenay sababta maxkamadda ciidamada u baari laadahay kiiska Igraan. siyaasiga caanka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo markale war qoraal ka soo saaray xaaladda cakiran ee dalka ayaa si gaar ah uga hadlay arrimaha ku gadaaman kiiska Igraan Tahliil Faarax ee ka taagan Muqdisho. ugu horeyntii Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa su'aal ka keenay sababta ilaa iyo hadda tallaabo u qaadi laadahay maxkamadda ciidamada oo loo gudbiyay kiiska Igraan. maxay maxkamadda iyo xiriir ilaalinta ciidamada u dhaqaaji laayihiin kiiska dacwadda Igraan Tahliil? ma baaritaankii ayaa laga hor istaagay? ma wada hadalkii siyaasadeed ayay ka warsugayaan mise cabsi ayay qabaan? ayuu qoraalkiisa ku yiri siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur. sidoo kale wuxuu tilmaamay in xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida looga baahan yahay in iska wareejiyaan tuhunka haatan laga qabo isagoo sidoo kale ka dalbaday inay cadeeyaan oo waxa ka hortaagan in ay guda galaan kiiska dilka Igraan. waa inay tuhunka iska wareejiyaan oo shacabka u cadeeyaan waxa ka hortaagan gudagalka kiiska dacwadda ayuu markale yiri musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. hadalkan ayaanu ku soo aadayay iyadoo ilaa iyo hadda aysan wax tallaabo muuqan qaadin maxkamadda ciidamada oo kal hore qoyska Igraan Tahliil Faarax u gudbiyeen dacwad ka dhan ah saraakiil sare oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISA. si kastaba kiiska Igraan Tahliil Faarax ayaa noqday mid culus wuxuuna xiisad ka dhex abuuray madaxweynaha muddaxileedkiisu u dhammaaday iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta. halkaad weli daawadayaal nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka ee ganacsato Soomaaliyaana Turkiga ayaa lagu xirxiray waxaana laga soo musaafurinayaa dalkaas. waxaa faahfaahin laga helayaa ganacsato Soomaaliyeed oo laga xiray goobo ganacsi oo dalka Turkiga ay ku lahaayeen kuwaas oo khamiistii la soo dhaafay ay xabsiga dhigeen ciidamada booliska dalka Turkiga. dabagalka waxay ogaatay in tirada dadka Soomaaliyeed ee lagu xiray dalka Turkiga ay gaarayso 9 qof oo iskugu jira rag iyo dumar kuwaas oo qaarkood haysta baasaboorada dalal kale sida Ingiriiska iyo Kanada. sidoo kale dadkan qaar shaqaale ayay ka ahaayeen goobaha ganacsi ee albaabada loo laabay halka qaarna ay iyagu ahaayeen milkiilayaasha ganacsiga la xiray. sida aan xogta ku helnay sababta loo xiray dadkaasi isla markaasna loo mamnuucay ganacsigooda ayaa inay dalkan ku soo galeen viisooyin iskugu jira dalxiis iyo ardanimo oo deganaansho lagu siiyay. sharciga dalka Turkiga ma ogolaanayo in dad u yimid dalxiis ama waxbarasho ee dalkan ka furtaan goobo ganacsi. sidoo kalena
sharcigu uma ogolaanayo dadkaasi inay ka shaqeeyaan gudaha Turkiga. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga ayaa la sheegay in ay ku guuleysatay in xabsiga laga soo daayo 9 qof ee Soomaalida kuwaasi oo intii xabsiga ku jireen laga saxiixay in 30 cisho ee dalka uga baxaan. Marar badan ayaa la sheegay in booliska Turkiga uu digay ganacsatada Soomaaliyeed ee hadda laga xirxiray goobahoodii, waxayna dowladdu hore uga dalbatay inay sharciga bedeshaan oo ay qaataan iqaamada shaqada. Ase yeeshee dabagalka wararka waxay ogaatay in shuruudaha lagu helo kaararka shaqada iyo ganacsiga ee dalka Turkiga ay adag yihiin oo kharash badan looga baahan yahay, taas oo ku kaliftay ganacsatadan inay digniinaha uga imaanayo dowladda ee dhagaha ka fureystaan. Sidoo kale xubno ka tirsan safaaradda waxa ay noo sheegeen in dowladda kula doodeen in dadkaasi aan la tarxiilin oo dalka aan laga saarin maadaama hanti badan ay ka taalo gudaha dalka. Sidoo kale safaaradda ayaa qabatay qareeno si dadkan Soomaaliyeed loogu doodo si ay dowladdu u siiso fursad ay ku soo dhameystiraan waxa ka dhiman iyo shuruudaha looga baahan yahay maadaama qaarkood hanti badan ee dalka u taalo. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dadka Soomaaliyeed berihii ugu dambeeyay la sheegay in cadaadis xoogan ay kala kulmayeen dowladda Turkiga, kuwa oo ka mid ah in qaarkood ay heli waayeen deganaanshaha dalka Turkiga. Faahfaahin dheeraadna waxa ay ka soo baxayaan qarax ka dhacay degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in maanta qarax uu ka dhacay bartamaha magaalada Marka ee xarunta gobolkaasi. Qaraxan oo ahaa nooca miinada ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay garaashka Cawaale oo ku yaala agagaarka saldhigga booliska degmada Marka. Ila dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in qarax kadib ay rasaas fureen ciidamada ammaanka oo goobta gaaray, kuwaas oo haatan bilaabay baaris la xiriirta dhacdadaas. Wararka ayaana intaasi ku sii darayay in qaraxan uu geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac, balse weli waxaa socda baaritaan ay wadaan hay-adaha amniga. Sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay, waxaa qaraxan ku dhintay marxuum lagu magacaabi jiray Saciid Jalbow iyo sidoo kale ninkii diyaarinayay miinada qaraxday. waxaana qaraxan uu saameeyay dhaqdhaqaaqa xaafadda Wadajir oo ah meesha ay wax ka dhaceen. ammaanka magaalada Marka ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ahaa mid degan, waxaana ka howlgala ciidamada militariga iyo kuwa nabad sugidda dowladda federaalka Soomaaliya. wasiir fiqina waxa uu weerar culus ku qaaday gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir. wasiirka amniga gudaha ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa weerar culus oo dhanka afka ah ku qaaday gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Yare Cali. Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in calaamadaha aakhira zamaanka ay kamid yihiin gudoomiye ku-xigeen gobol oo subax kasta u soo shaqo taga sidii uu wax uga sheegi lahaa ra'iisul wasaaraha qaranka. Fiqi ayaa soo qaatay xadiis laga wariyay nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, kaas oo micnihiisa yahay haddii arinta xil loo dhiibo qof aan u qalmin sug saacadaha qiyaamaha. hadalka Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu si toos ah ugu socday gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka Banaadir Cali Yare Cali oo maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada ku weeraray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. kadib sanado uu xilka weysanaa Farmaajo, Cali Yare ayaa mar dambe xilligii dhamaadka muddo xileedka Farmaajo loo dhiibay xilka gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka Banaadir. waa shakhsi si weyn u taageera madaxweyne Farmaajo isla markaasna u dhaliila dadka ka soo horjeeda dowladda Farmaajo. Cabdi Xaashi iyo Maadi Guuleedna waxaa dhaleeceyn xoogan ay kala kulmeen liiska musharaxiinta aqalka sare oo ay shaaciyeen. liiska musharaxiinta aqalka sare ee gobolada Waqooyi oo maalintii shalay ahayd 22 bisha taariikhda ay shaaciyeen gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka waqtigu ka dhamaaday Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa dhaleeceyn kala kulmaya beelaha gobolada Waqooyi iyo siyaasiyiinta qaar. Cabdi Xaashi ayaa lagu eedeeyay inuu xirtay mid ka mid ah kuraasta iyo inaysan xulistiisa u marin nidaam daafuran. Idil Maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta gobolada Waqooyi oo la hadashay warbaahinta ayaa ku tilmaamtay cadaalad daro uu sameeyay Cabdi Xaashi Cabdullaahi qaabka uu maray xulista mudanayaasha aqalka sare. taariikhda ayay u gali doontaa wuxuu nagu sameeyay Cabdi Xaashi ayay tiri, iyada oo wasiirka koowaad ee xukuumadda ku eedeysay inuu aqbalay liis xaaraana oo saaxiibtinimo iyo nin jecleysi lagu soo xulay.
cabdi xaashi cabdulaahi keligiis ayuu tartamayaa waxa uuna ka mamnuucay beeshiisa in qof la tartamo ayaa hadalkeeda raacisay. xubnaha laga tegay ee uu tartamaya aqalka sare ee gobolada waqooyi waxaa ka mid ah kow ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ridwaan xirsi maxamed, laba wasiir ku-xigeenkii hore faysal xuseen daahir, saddex keeze aadam ismaaciil, afar axmed maxamed shoor, shan roodo xirsi xuseen, lix idil maxamed saleebaan, toddoba zeynab maxamuud kudhaakow, sideed deeqo maxamed saalax, sagaal sansam yuusuf, toban axmed cilsi cawaale, 11 hodan qalbi, 12 senator nuur faarax jaamac, 13 senator muxudiin sheekh cali jaamac, 14 shugri aadan caataaye, 15 senator ayuub ismaaciil yuusuf, 16 suldaan maxamed muuse, 17 maxamed khaliif iyo 18 cabdixakiin maxamed. siyaasiyiinta qaarkood ayaa sheegeen in cabdi xaashi iyo mahdi guuleed aysan nidaam daafuran ah kuraastan uga qaybgelin beelaha dega gobolada waqooyi ee dalka, islamarkaasna ay liiskan kusoo qorteen xubno ay saaxiiba yihiin. musharaxiintan ay soo gudbiyeen mahdi iyo cabdi xaashi ayaa waxay u tartami doonaan 11 kursi ee aqalka sare ay ku leeyihiin gobolada waqooyi ee hadda loo yaqaano Somaliland. 10 ka mid ah kuraastan ayaa waxaa ku tartami doona 2 ilaa 3 musharax, halka kursiga koowaad uu musharax kaliya u yahay gudoomiyaha aqalka sare ee iminka cabdi xaashi cabdulaahi. ugu dambeyntiina daawadayaal waxaanu eegi doonaa warbixin ku saabsan xaaska Erdogan. maalintii ay Soomaaliya joogtay waxa ay sheegtay inay u oosay si aysan weligeed u ooyin. Emine Erdogan oo amarwada koowaad ee dalka Turkiga ayaa la filayaa in ay xarunta qaramada midoobay ay ku soo bandhigto buug ee ka qortay booqashooyin ee ku tagtay dalal Afrika oo ay ka mid tahay Soomaaliya. Isniintii markii ugu horeysay buugan kula wadaagtay xaasaska madaxweynayaasha kale ee ka qaybgalaya shirka New York ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay, sida ay tabisay wakaalada wararka Turkiga Anadolu. buugan waxa ay ku cabireysaa khibrada ee ka heshay safaradii ay ku martay qaar ka mid ah wadamada qaaradda Afrika. madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan iyo xaaskiisa ayaa axadii u duuleen Mareykanka si ay uga qayb galaan shirka madaxeedka sanadlaha ee qaramada midoobay. buugan ay qortay xaaska Erdogan waxa ay ku magacowday My Travels to Africa, safaradii aan ku tagay Afrika. waxaana sidoo kale loo qaybin doonaa wakiilada ka kala socda hay'adaha dowliga ahayn ee loo yaqaan NGO-ga iyo madaxda wasaaradaha arrimaha dibadda. xaaska Erdogan hooyadeed ayaa loo hibeeyay buugan, waxa uuna si buuxda uga sheekeynayaa safaradii xaaska Erdogan gashay intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2020 oo ay ku tagtay dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Algeria, Ethiopia, Tanzania, Mozambique iyo Senegal. waxaa buugan iibintiisa laga bilaabi doonaa gudaha dalka Turkiga bilowga bisha Oktoobar, waxaana lagu daabici doonaa luqadaha kale ah Turkish, Ingiriis, Faransiis, Carabi iyo Swahili. haddaba maxay ka tiri xaaska Erdogan arrimaha Soomaaliya? xaaska madaxweyne Erdogan ayaa qeybaha ee buugeeda uga hadlaysay safarkii ay ku tagtay Soomaaliya. waxa ay ku sheegtay inay ku soo aragtay xaalad si weyn u dhaqaajisay qalbigeeda. weligay uma aanan ooyin sida aan maalintaas u ooyay, iyadoo diiradda saaraysay socdaalkii ugu horeeyay oo ay ku tagtay Soomaaliya sanadkii 2011 ayay sheegtay inay ku soo aragtay xasuus lama ilaawaan ah oo aan ka go'aynin nolosheeda. marwada madaxweynaha Turkiga ayaa iyadoo cabiraysa dareenkeeda ku saabsan booqashadii Soomaaliya waxa ay tiri wax turjumaan ah uma aanan baahneen si aan u dareemo xanuunka ay dareemayeen hooyooyinka caruurtooda ku waayay gaajada awgeeda. weligay uma ooyin si aan maalintaas u ooyay. eelinta ayaa ah luuqada uu qof waliba fahmi karo. waxaan arkaya caruur ee isku dhageen lafahooda iyo maqaarkooda. waxaana loo sheegay in ilmo loo diray cisbitaalada ay dhexda kusii dhinteen. xaaska Erdogan ayaana sheegtay inay diyaarisay howl samafala oo ku wajahan Soomaaliya, waxayna tiri ha iloobina Soomaaliya. dhanka kale buuga ayay ku soo bandhigtay sawiro ee farshaxamiistayaal Turki ah oo iyadu ku weelinayay safarkii Soomaaliya ka sameeyeen horumarada uu Turkiga ka hirgeliyay wadanka ku yaala geeska Afrika. marwada koowaad ee Turkiga ayaa sheegtay in wixii ka horeeyay howlgalkii horumarinta Afrika ee uu Turkigu ka bilaabay sanadkii 2005 ay qaaradu ahayd mid ka fog dadka reer Turkiga. marka la soo hadal qaado Afrika waxaa maanka ku soo dhacaya gumeysi, saboolnimo, baahi,
caruur ooman ayay tiri xaaska Erdogan. Fikradaasi waxay isbedeshay markii ugu horeysay aan booqasho ku tagay Afrika ayay sii raacisay hadalkeeda iyadoo waliba sheegtay in ninkeeda ay u raacday dhammaan safarada u baxay intii karaankeeda ah. mudnaan gaar ah ayaa siinayna dhibaatooyinka haysta dumarka iyo caruurta reer Afrika waxaana doonaynaa inaan ka mid noqdo dadka daaweeya dhaawacyadooda. naxariista noocaas waa dhaqan uu leeyahay wadankeena aan ku dhashanay kuna barbaarnay ayay tiri. waxa ay rajo ka muujisay in buugeeda cusub uu keeni doono wanaag wada shaqeyn iyo isdhexgal dhinaca dhaqanka uuna xoojin doono saaxiibtinimada ka dhaxaysa Turkiga iyo Afrika. sidoo kale waxa ay hoosta ka xariiqday in safar walba oo ay ku tagaysay dalalka Afrika ay ka horeysiin jirtay koorsooyin gaaban oo ay ku baranaysay wadan kasta dhaqankiisa iyo dabeecadiisa. inta badan marwada madaxweyne Erdogan waxa ay booqataa xarumaha lagu xanaaneeyo caruurta agoonta waxa ayna sheegtay in qalbi ahaan ay aad u taabatay marxaladii ay ku aragtay mid kamid ah xarumaha agoonta ee ku yaala dalka Djibouti oo lagu magacaabo Daryeel. waajib ayay nagu tahay inaan ka qayb qaadano howsha culus oo ay hayaan dadka tabarta yar isla markaasna aan ku dhiiragelino ayay tiri. si aad u fahanto xaaladaha bini'aadamnimo waxaad u baahan tahay inaad indhahaaga ku aragto. aniga ahaan safarada aan dibadda ku aaday waxaan ka soo helay khibrado iyo xasuusinaya mas'uuliyad ayaa kamid ah waxyaabaha ay ku qortay buugeeda. buugga xaaska madaxweyne Erdogan ayaa markale daafuro noqon doona mid caalami ah oo dalal badan gaara. guud ahaan daawadayaal wanaagta warkii oo aad kala socoteen janalka dabagalka wararka fadlan hadaan ugu cusubtay nagu soo biiro subscribe saar janalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada oo hela wararkii warbixinada 24 saacan halkan ku baahino aragtidiina halka hoos noogu reeba muuqaalka share gareeya laagtiina waa inoo muhiim daawadayaal wana ku maasantiin daawashada iyo la socodka warka janalka dabagalka wararka.